سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. shalay waxaynu soo tilmaamnay muqadamaadkii hore guurka iyo nikaaxu arkaantii uu u baahnaa ama waxyaabihii muhimka u ahaa. aynu ku soo sheegnay inuu yahay nin iyo gabadh isu xalaala oo isguursan kara, iyo weli iidankiisa la rabo, iyo siiqatul caqd legal contract siduu qaabku u dhacayo oo ah baynu nihi qubuul iyo ijaab, in midna uu sheego gabadha inuu guursanayo ama in loo guuriyey, ka kalena uu sheego inuu aqbalay guurkaasi. intaa waxaa raaca baynu nihi in markhaatiyaal ay jiraan. intaasi haddii ay dhacdo waxayana muhima baynu nihi in gabadhu hadday bikro tahay iyo hadday hayib garoob tahayba in idan la weydiiyo. idanka garoobtu waa inay hadasho oo aqbasho, idanka inantuna xishoodkeedaa loo aqbalayo haddii ay aamusto aamuskaa lagu meherinaya. haddayse diidan tahay way ka hadli kartaa, way diidi kartaa. axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaamna waxay ku soo aroortay gabadh baa nebiga u timi, jaariya bikra iyo mid tayiba labadaba laba xadiis baa kusoo kala arooray oo le aabbahay baa i meheriyey, meherkaana maan rabo. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam nikaaxaasi wuu celiyey ama wuu diiday. dabeetana waxay tidhi waxaan rabay in dumarku ogaadaan aabbayaashu inaanay waxba ku lahayna waan ogolaaday, nikaaxii aabbahay uu fuliyey. yani waxay tilmaamaysaa in idan la weydiiyo. haddaynu hore uga sii soconno marka waxyaabaha sunanka iyo curfiga ku soo arooray, sunnada waxaa ka mid ah markaa nikaaxaasi la guntayo in khudbatulxaaja la akhriyo. waa khudbadan had iyo gooraa maqashaan imaamado akhrinaya, in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina. khudbadooda dheere noocaasa khudbatulxaaj baa la yidhaahdaa. meelaha ugu muhiimsan ee ku soo aroortay waa in arooska marka la meherinayo lagu furfurto. intaa wixii ka dambeeya waxa weeyaan in loo barakeeyo reerka, loo tahniyadeeyo guurka. mas'alada sadaaqa oo aynan iyada xagga hore ku sheegin, meherku yaraantiisa iyo badnaantiisu xad ma leh. ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay wain aradtum istibdaala zawji makaana zawj waataytum ixdaahunna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shaya. haddaad gabadh ka tegayso gabadh kala guursanayso oo aad middood siisay baa la yidhi qintaar, yacni maal tiro badan le aad siisay, falaa ta'khuduu minhu shaya, waxba ha ka qaadanina. culammadu waxay dhahaan meherka ka yar baa barako badan. kow, meherka in la sheego oo markaasi la wada dhigo waa bannaantay. in la sheego oo la isku lahaada waa bannaantay, laakiin sidan soomaalidu ay isugu lahaatay hadhow dafirka iskaga dhadhow maaha, ama isku lahaanshiya xad wuxuba u qiimo beelo. waxaa dhacdaa dadka badh dee beri 10,000 lacag ahayd in 10,000 islaanta lagu meheriyey, maantana 10,000 dee $1 maaha. 10,000 oo shilin soomaaliya waagii horena waxaa laga yaabaa inay xoolo aada u tiro badan ahaayeen, maantana $1 qiimo ridka inta hallegii lagu rido maaha. waxaa habboon in la siiyo. waxaa kaloo habboon ama bannaan aan idhaahdo in meherka badh la qadimo badhna dib loo dhigo. yacni maalan $1,000 baad ku meherisay, inaad 500 la qadintid ama 600 qadintid ama 400 qadintid, baaqigana lagu lahaado iyana waa bannaan tahay. waxaa kaloo bannaan meherba haddaan la sheegin se gabadh laga dhigto mehrulmathal bay leedahay. kuwa hablaha iyada u dhigma wixii lagu meherin jiray ayay kugu leedahay. wuxuun baan jirin gabadh aan sadaaq laba siinayn oo aan lahayn baan jirin. isagu ma jiro sadaaq lii, meher lii. meherku mararka qaarkood xataa manfaco yar wuu noqon karaa. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii uu ku yidhi utlib walow khaatim
kaatun xadiidana ha noqdee wax soo helay waxba soo waayey waxaa la yidhi wixii aad garanaysa qur-aan aan kugu marin inuu qur-aanka baro wakhtiyada dambe waxaa caado iska noqotay dadku inay yidhaahdaan kitaab qur-aana gabadha ha laygu meheriyo kitaab qur-aana haddii kamaal ahaan looga jeediyo qiimihiisa dee waa iska 100 karawna lagu soo furtaa soo maaha meelaha yacni wax weyn maaha waxa ka roon maal la garanayo inaad samaysataan maal macruuf oo la garanayo in gabadhu qabsato inta maal la helayana nebigu muu odhan ninkan qur-aan baan kuugu meheriyey marka hore war wax doon baa la yidhi markuu waxba soo waaye uu yidhi waxba ma la soo waa ayaa la yidhi qur-aanka intaad garanayso ha lagugu dhigo waxa fiican markaasi gabadha in meher la siiyo meherkaasina inuu noqdo shay caadiya hadduu batana dhib maaha hadduu yaraadana dhib maaha laakiin dhaqamadana in lagu xidho meher aada u tiro badanoo inantu inay ceeboobayso haddaan kumaankum lagu meherin waa dhaqanka liitee canuusadan carbeed keenay in khaliijka dumarka la guursan kari waayo oo inantun guriga lagu hayo sababto waxyaabaheed baa xoolo badan ka doonaya ama waxaa la rabaa xoolo badan in lagu meheriyo waxaase sharciga islaamiga uu khilaafsan yahay sharciga islaamiga asalkii waxa weeyaan gabadhana in loo guuriyo ninkana loo guuriyo meherkana inaan dadka lagu dhibin qofku wixii uu awoodo in loo sameeyo intaa kadib waxa weeyaan in la iclaaniyo guurka oo farxaddiisa la muujiyo oo la tahniyadeeyo ayaa sunnada ah in la iclaaniyo oo loo barakeeyo laakiin waxaa fiican guriga muslimka ah shareecada waxayna bartay in cibaado lagu bilaabo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam habeenka gabadhaada marka lagu keeno gabadhaada waxaan u jeedaa taad qabto xaaska marka la keeno luqada soomaaliyeed iyo lahajaadkaa tiro badane xaaskaasi marka ay kuu timaado sunnadu waxa weeyaan baa la yidhi inaad fooda qabato dabeetana ducaysatid ku ducaysatid ilaahu wixii khayr aad ku abuurtay inay haleeshii wixii shar ay leedahay inay dhaafi dabeetana aad ducaysatid 2 ragcadood oo sunna aad tukatid cibaado iyo allabari in lagu bilaabo wakhtigan dambe waxaa batay in fisqi iyo alla ka fogaanshiya lagu bilaabo oo dumar isa soo qaaqaawiya qolo muusig tunta naaga heesa rag heesa bal aad moodo in nidaam gaaleedkii la qaatay ilaa xad aad arkayso gaalada marya cadcad iyo kaatun yaroo laysu geliye iyo waxaas waa nidaam gaaleedka waa kiniisadda wixii laga soo qaaday in halkaad ilaahay cibaadadiisa guraad aasaasaysaa ubad baad rajaynaysaa meelaad ku xasishaad rajaynaysaa halkaad khayr ku asaasi lahayd yaa la bari ee aad odhan lahayd ilaahay baryi lahayd in wax fiican kaaga dhigo inaad shar ku asaastaa soo markaa in shar uun ka dhasho noqon maayo ninka camal raba inuu sameeyo ee yidhaahda macsaan ku bilaabaya maxaad ka rajaynaysaa midhihiisu inuu noqdo markaa haddaad adiguba macsi ku bilowdo waxaa lagu ogolaya inaad farxad ku bilowdo haa inaad faraxdo waxaa lagu ogolyahay inaad samayso maxay casuumad waliima nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay cabdiraxmaan ibnu cawf oo muhaajiriintii dee soo hijrooday oo haddana waxoogaa qurxoon ay ka muuqato waana cabdiraxmaan see waxu jiraan buu yidhi oo ilahay rasuulkiisa waan guursaday buu yidhi wuxuu yidhi maxaad ka bixisay nuwaa min dahab buu yidhi waxaan ka bixiyey laftimireed in leego dahaba waxoogaa garaamaa weeyaanoo dahaba ayaan mehero siiyey dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi awlib walow bishaat weliimo dhigo neefna ha noqotee laakiin waxaa kaloo soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkii uu guursanayay qaar ka mid a inaanu xoolana qalin ee waxoogaa uun cunno kale iyo wixii la sameeyey idan weliimadu horta koow waa qofba wuxuu awoodo in weliimo la sameeya waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam islaamkuna wayna faray in la iclaamiyo la sheego in reerkaa la isku og yahay oo ninkaa iyo gabadhaasi ay isguursadeen oo aanay zine ahayna dadku u ogaado oo la iclaamiyo weeyaan in la farxo weeyaanoo reer cusub oo la dhisay oo bulshada ku soo kordhay inuu yahay wax lagu farxay inuu yahay la muujiyo in la sameeyo cunnadaasi haddii aad waxhaysato muusir tahay inaad neef 2 3
waxaad qali karta inaad qasho haddii aanad waxba haysan waajibkuguma aha haddaad waxoogaa digira u walaaqdo waa khalaas waa waliima haddaad in beriis how samayso waa waliima wixii aad haysato uun laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha asalku guurkaa fiican oo la buunbuuninaya laakiin cunnada maaha wuxu iyo ima qashan kale maaha waa in reer muslima la aasaasay waxa la buunbuuninaya oo laga rajaynayo ubad saalixa iyo dad khayr qaba inay ka dhashaan sidaa awgeed waliima wixii aad awooddaa waliimo ah cursiguna waa wixii aad awooddo walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam waliimada 3 cashuu mararka qaarkood dhigi jiray 3 maalmood oo isku xiga 3 maalmood dadka aad casuunto oo cunno siisid haddii farxadda dumarku ay u baahdaan ama raggu u baahdo gabay iyo hees iyo waa la tirin karaa bishart culamadu waxay dhahdeen muusig iyo waxaasina inaanay la soconin xumana inaanu sheegaynin horta haddaad gabay maqasho ama hees maqasho shareecada islaamiga haddii aan waxan dheeraadka ahay naga dambeeyaan muusigan iyo baabkan ha dambeeya laakiin markuu hadalka yahay wixii afka awalba ku xumaana wuu ku xun yahay wixii ku fiicnaana wuu ku fiican yahay wixii ku bannaanaayo mubaaxa ku ahaana waa ku bannaan yahay yacni gabaygu wuxuu ka warramayo ama heestu waxay ka warramaysaa isweydiinta lown ma wax wanaagsan bay sheegaysaa waa bannaan tahay ma wax iska mubaaxa bay sheegaysaa wax iska bannaana aha waa bannaantay ma wax xun bay sheegaysaa waa xuntay tan iyada muusiga iyo intan leh dee wax kale kama warranta in nin baa naag daba socday unbay ka warrantaa mayaad hees kale weligiin maqashay nin baa naag jeclaaday intaas baa lagu celceliyay xikmad ku fadhida ama waa la farxi